السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiiranay English Learning Funnies qaybtiisa YouTube-ka. Haddaba luqadda Ingiriisiga baro si fudud adoona la soconay barnaamijyada kala duwan aan daily u soo dhigno barteena YouTube-ka sida conversational practice, wada sheekaysi, kelmado, mowduucyo, topico iyo barnaamijyo kala duwan. Haddaba haddii aad nagu cusubtay, subscribe noo saar. Haddii aad hore noogu saarneed qalbiga ogsooni Allah ku sharfo. وأنا قاعد بسام موسى أحمد عبد الصقديرني إن شاء الله ما توحين قادم دونا موضوع خصوصاً the Humbucker husband حاصلها جبري سو أي كأدكتين the Humbucker husband حاصلها أي جبري سو كأدكتهاي أبا نينك أشرق يا سيدا إن جبري سو كله وياهي إن شاء الله ونسكب لون دونا early in the morning صباح ظهره early in the morning subaxda hore he gets up waa kacaa and prepares wuxuu diyaariyaa a cup of tea shaah kooba before the lady ka hor intaanay marwadu checks out aanay ka soo kicin of her slumber hurdadeeda waa yahay early in the morning subaxda hore he gets up waa kacaa and prepares wuxuu diyaariyaa a cup of tea shaah kooba before the lady ka hor intaanay marwadu checks out aanay ka soo kicin of her slumber hurdadeeda waa yahay after tea shaaha ka bacdi he brings wuxuu ka keenaa the paper waraaqad from the gate he brings wuxuu ka keenaa the paper waraaqad from the gate geedka ay waraaqad ka keenaa he goes wuxuu tagaa to the market suuqa and buys wuxuu soo iibiyaa the daily used food cuntada maalinlaha la cuno daily used food waxaa la yidhahdaa cuntada maalinlaha ee la cuno and daily used food cuntada maalinlaha ee la cuno returning wuxuu ku soo noqdaa home guriga he duties wuxuu qabtaa amba uu hagaajiyaa the furniture alaabta amba fadhiga gurigu hagaajiyaa he duties wuxuu hagaajiyaa amba uu nidaamiyaa the furniture fadhiga shelves qaabeeya oo uu nadiifiyaa meelahaas changes wuxuu bedelaa bedsheet sariirta go-eega and arranges wuxuu nidaamiyaa the wardrobes armaajada armaajooyinka a quick shave si degdegu u maydhaa ambaad sidoo kalena uu isku nidaamiyaa he gets ready wuxuu diyaar u ahaadaa to peel inuu fiiqo amba uu dhilo potatoes baradhada and he gets ready wuxuu diyaar u ahaadaa to peel inuu fiiqo amba uu jarjaro potatoes baradhada and brings to other necessary
sidoo keeno and brings waxaanu keenaa the other necessary groceries khudaarta kale ee magaranaysa macaan and brings wuxuu keenaa the other necessary khudaarta kale ee laga maarmaanka ee from the chicken chickenka looga baahan yahay and brings wuxuu keenaa the other necessary groceries khudaarta kale laga maarmaanka for the chickenka looga baahan yahay sendis wuxuu diraa children caruurta to the school ku diraa polishes shoes kabuhu u baalasheeyaa washes vehicle wuxuu maydhaa gaadhiga and trims waxaanu jaraa the plants dhirta and trims wuxuu jaraa the plants trims waa jaritaankii the plants dhirta or ama moose wuxuu gooyaa the lawn cawska or ama moose waxa weeyaan goyntii the lawn cawska aad ku gaagaaban baa la yiraahdaa lawns waayahay moose wuxuu gooyaa the lawn cawska the time waqtiga he spreads uu ku wadayo the clothes dharka the time waqtiga he spreads uu ku wadayo the clothes dharka of the lady ee marwada on the string xadhiga the time waqtiga he spreads uu ku wadayo the clothes dharka of the lady ee marwada on the string xadhiga or ama even the washes xataa markuu maydhayo the lefty in the bathroom iyo waxyaalaha ay kaga dhex tagtay qolka bathroomka as saves him from the nagging isagoo iska ilaalinaya from the nagging in la canaanto isla markaana magaranaysa la dhaleeceeyo waayahay back home gurigu ku soo noqdaa semi routine isagoo qabanaya wixii uu shalay qabtay tusaale ahaan haddii uu shalay qabtay magaranaysa inuu dharka maydho amba iskuulka carruurta geeyo sidoo kale maanta way u taalaa shaqadaasoo kale routine semi routine isagoo qabanaya tea cabis sidoo kale shaahi haddii uu shalay kariyey maanta sidoo kalena uu karinayaa vegetables haddii uu khudaar uu shalay uu soo iibiyey maantana uu soo iibinayaa kitchen duties haddii uu shalay waajibaadkii kitchenka ay ahayd inuu weelka maydho ay ahayd magaranaysa inuu daaradda nadiifiyo maanta sidoo kalena uu qabanayo waajibaadkaas kitchen duties wuxuu qabanaya waajibaadkii kitchenka teaching kid carruurtu wax baraya doing homework wuxuu kaga shaqeynayaa layniska loo soo diray carruurta ayuu kala shaqeynayaa and looks back the account waxaanu dib u eegaya accountiska from the money lacagta spent by him ayadu u soo dirtay waayahay the lady marwadu happens to be working waxa ku dhacday to be working inay shaqeyso the lady marwada happens to be working waxa ku dhacday inay marwadu shaqeyso and busy sidoo kale ay noqoto mashquul he feels busy isagoo wuxuu dareemaa mashquul as she is iyadu sidoo kale siday u dareento isaguna u dareemaa mashquul waayahay on the holidays maalmaha fasaxa ah and Sundays iyo maalmaha magaranaysa axadda his work shaqadiisu increases way fara badataa due taasoo ay ugu wacantay to visitors magaranaysa booqayaasha amba dadkan u imanaya waayahay on the holidays maalmaha fasaxa and Sundays iyo maalmaha hadda aba his work shaqadiisu increases way siyaadaa due taasoo ay ugu wacan tahay to visitors dadka soo booqanaya meesha amba xaafadda imanaya he noticed down wuxuu ka qabtaa the phone mobilka calls kolalka kaga imanaya from the lady marwada he noticed down wuxuu ka qabtaa
he noticed down wuxuu ka qabtaa the phone calls koolalka soo dhacaya from ka soo dhacaya the lady marwada and tries wuxuuna isku dayaa to please her inuu iyada magaranaysa raali geliyo and tries wuxuu isku dayaa to please her inuu iyada raali geliyo aad baad u mahadsantihiin sidaad noo daawateen tahanks waayahay sidoo kale waxaa nagala socon kartaa page-kan ku leenahay tiktok adoo ku qoriya dhiirane English Learning Friends haddaba page-kan waxaan kusoo gudbinaa broadcast-yada luqadaha barnaamijyada luqadaha Ingiriisiga lagu turjumayo haddaba follow na soo dhisaad wax badan faa'iido sidoo kale aad u hesho